diin ma ku dhaqmanaynaa anigu I will say no ku raacsana aniga saaxiibkay Faisal diinta ma qabo aniga wadanka in lagu xukumo naga aqal badan Mareykan ayaa kala sooceen diinta iyo state there's a reason ay kala sooceen it's not joke ma naga aqal badan yihiin waa naga aqoon badan yihiin waa naga way aragsan yihiin xireen baashan la kala sooco أنا مرة حان قبا مرة إن لك رسول. وحان الذكر اللي شيء قسم أي قصة قال كعيو مرة كان تجني أو إنه مرة كان نقول هالديان كسور اسمي أيها إنه اللي هلا داري نيجي قصورها محكمة دتشوق بان داري دتك لصو دورتي مرة شوفوا بلا إنه يرهدوا مكوجو والله هذا مكوجو بالله هذا لكن مكوجو الله مكوجو بالله اسمه داريو أنا ودستور بان لنا دار باكو تالا دستور كاس dadka lagu dhaariyo waxaan ku yiri war ku dhaari dastuurka dhaarta ku taala beesha ku taala akhriyo ku dhaari dadka sulku soo qaaday dhaartu dacwo akhriyo akhrin kari waay waana garsoore waxaan noqotay nin xildhibaan ila socdo inaan iraahdo adigu akhri isagoo gacanta saarada dhaari inaajil cadaaladda noocaas culimadii iyo odayaashii baan qado u sameeyay waxaan ku yiri culimo Allah iyo masaajid waxa ka hadlaysaa aniga waxba iguma fadhiyo adinkiisa ay dhiba kumana tukado anaga dad badan oo culimada kamida gabdhaha markay afjigayaan ama ay rabaan inay xaqiraan ama ay rabaan markay kaalinta siyaasadda u diidaan waxay dhahaan waa naaqisatul aqli wa diin aqliga iyo diinta nuqsaan ka yihiin xadiisyo wada falsa ah oo meel ay ka yimaadeen aysan jirinay kitaabaha jawaab kala soo baxaan laakiin waa u jeedaa waliba aad waxaan uga baryaynaa culimada ayna dhihin haweenku guri waay meel quraanka uga qorantaa anaka ma arkin haweenku guri waay xaawiye aadan isku halay ahaayeen feeraan laga bixiyo waa been meel ay ku taala ma jirto